axadka toobakeenka u saaxiibka ah walilaahi mathalu laclaa. haddaba dadka muslimiinta ha dadaalaano, toobada iyo wanaagga ha lagu dadaalo, ilaahay ha loo soo rujuuca subxaanahu wa tacaala. waxaa loo baahan yahay inaan macaasida iyo dembiga ka qoomamayno, waxaa loo baahan yahay inaan faraha kala baxno, waxaa loo baahan yahay in qofka uu ka nadaamoodo, waayo dembigu laba ayaa loo qaybiyaa. midna wuxuu ka dhaxeeyaa ilaahay iyo addoonkiisa, midna waa addoommada dembiyaalku ay kala galaan. midka aad ilaahay ka gasho subxaanahu wa tacaala 3 shuruudo ah ayaa lagaaga baahan yahay. ta koowaad waa inaad dembigii faraha kala baxdaa, waa inaad xumaantii iyo macaasidii aad ku jirtay dhinac iska dhigtaa, waa inaad khayrka iyo wanaagga raadisaa. waa shardiga ugu horeeya. adigoo dembigii ku dhex jira ka waran haddaad dhaada ilaahayow icafi. xumaantii buu ku jiraa, salaad la'aantii buu ku jiraa, xijaab la'aantii bay ku jirtaa. rabbiyow icafi waa tawba istihzaa'a. war marka hore dembiga dhinac dhig, marka hore xumaanta ka soo dhex bax, marka hore meelahaad xumaanta ku samayn jirtay ka soo kac, marka hore meelaha khayrka iyo wanaagga imow. waa shardiga ugu horeeye dembiga haddii adiga iyo rabbigaa idinka dhaxeeyo. maca daalika waa inaad xumaantii oo dhan faraha kala baxdaa. midda labaad ee shardiga ah ee looga baahanyay toobadu waxay tahay qofku waa inuu ka nadaamooda, waa inuu ka qoomameeyo maxaa kuu geeyey dembiga inuu yidhaahdo, inuu aad iyo aad uga murgo, inuu dhibaato fara badan u arko. ilan dembiga waa lagu halaagsamaa, jahanamaa lagu mutaystaa, risqigaa lagaaga yasiraa. xumaanta iyo dhibaatada mar allaala markaad ku dhex jirto waxaa lagaaga baahan yahay toobana aad rabto waa inaad ka nadaamooto. waan ku qosolnaa dembiga maanta. nin baa rasuulka u yimid oo yidhi yaa rasuul allah man najaah, badbaadadu maxay tahay? rasuulku wuxuu yidhi carabkaaga iska qabo, war midkaa iska ilaali, naartuu ku geynaya. carabka iska ilaali buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. amsik calayka lisaanak, war dushaada carabkaaga ka qabo. abuubakar baa la arkay asagoo meel laaba ku jira oo carabkiisa intuu qabta canaananaya oo xoog u jiidaya oo dhahaya haada aladii awradanii almawaarid. waa midka jahanama igu arooriya, midka aniga cadaabka igeeya waa carabka. maca daalika rasuulku najaadka wuxuu ku yidhi